badmareenkii Ibn Battuta ee tegay magaalada Muqdisho 700 sano ka hor muxuu ku arkay, muxuu la kulmay, sideese loo soo dhaweeyay? bal intaynan u gudagelin barnaamijka waxaan kaa codsanaynaa in aad share garayso, subscribe garayso oo aadna furato beelka si barnaamijyadeena si joogto ah ay kugu soo dhacaan oo aad u noqoto qofka ugu horeeya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aan idiin soo tabino. halkani waa Aqoon TV. magacaygu waa Cabdifataax Cabduqaadir. Ibn Battuta oo magaciisu saddexan uu yahay Abu Cabdullaahi Muhammad Ibn Battuta wuxuu ahaa badmareen u dhashay dalka Morocco kaasoo booqday in ka badan 40 dal oo ku yaala saddex ka mid ah shanta qaaradood ee dunida qarnigii 14aad. ninkan oo ahaa nin dhiiran oo u bareeray in uu naftiisa halis u geliyo sida uga warkeyn lahaa dhul aan horey loo tagin loogana warhayn, wuxuu booqday oo buugiisa ku qoray in ka badan 40 dal oo ku kala yaala qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub. Ibn Battuta oo loo yaqaan Raxaalul Carab oo macnaheedu yahay dalmareenkii Carbeed ayaa sanadku markuu ahaa 1331 waxa uu ka soo degay xeebaha dalka Soomaaliya asagoo ku hormaray magaalada Zaylac ee dhacda Badda Cas. haddaba safarkiisii Zaylac kadib waxa uu soo gudbay magaalada Muqdisho, halkaasoo safar qaatay 15 bari uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho. ninkan ayaa wixii uu ku arkay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee uu soo maray ku qoray buugiisa la magac baxay Socdaalkii Ibn Battuta ama Rixlatu Ibn Battuta. ayaa waxa uu sheegay in doontii markii ay soo gaartay xeebaha Muqdisho ay ku soo dhaweeyeen dad ganacsato ah oo sita doomo yaryar, kuwaasoo dhaqanka Muqdisho u yaala uu yahay in qof ka mid ah uu wax kaa iibiyo qofkaas aadna u noqoto marti iyo qofkii waliba ku hagi lahaa inta aad magaalada joogto. balse markii ay arkeen in aan ahay nin doonaya in aan la kulmo madaxda dalka, ayay waxay ugu yeereen nin qaadi ahaa kaasoo ka agdhawaa boqorka magaalada xukumayay. haddaba Ibn Battuta iyo magaalada wixii uu ku arkay bal aynu dhageysano. waxa uu yiri: magaalada Muqdisho waa magaalo weyn oo dad badanina ay ku nool yihiin. Muqdisho aad baa la iiga qadariyay oo la iiga soo dhaweeyay. dadka degan magaalada Muqdisho aad bay u qadariyaan dadka ka yimaada dhulka barakaysan ee Xijaas, wayna ixtiraamaan, waxayna u yaqaanaan shariif ama faqiih. waxaana loo soo galbiyay dhankii aqalkiina dejin lahaa ee martida. waxa uu ahaa guri aad u qurux badan oo lagu xardhay roogag lana dhigay agabkii ay naftu u baahneed oo idil. gurigaas waxa uu daris la ahaa oo uu ku dhaganaa aqalka ama qasriga uu degan yahay ninka suldaanka ka ah magaalada. aqalka waxaa nagu soo dhaweeyay nin wasiir u ahaa suldaanka, kaasoo loo xil saaray in uu naga warqabo naguna soo dhaweeyay magaalada maadaama aynu marti u nahay suldaanka. waxaa markiiba naloo keenay raashin ka kooban lowskaasoo weel looga dhigay caleemo qoyan oo aad u qurux badan. waxaa kaloo naloo keenay biyaha laga sameeyo ubaxa ka baxa Shaam. intaa kadib waxaa naloo keenay buu yiri Ibn Battuta bariis lagu kariyay subag sixin. waxaa kaloo weheliyay koosaar ka samaysan hilib, digaag iyo kalluun. cuntadaasoo lagu soo riday xeere ay isticmaalaan Soomaalida, taasoo laga qoray geedaha. intaa kadib waxaa naloo keenay buu yiri muus lagu kariyay caano. waxaa kaloo naloo keenay khudrado kala duwan buu yiri sida liinta, cambaha, sanjabiil, basbaas, cusbo, khal iyo waxyaalo kaloo aad u badan oo Ibn Battuta ku tiriyay kitaabkiisa ama buugiisa. Ibn Battuta waxaa kaloo uu sheegay in dadka Muqdisho degan ay aad cuntada u cunaan cunto badan. waxaana uu yiri qofka Muqdisho degan waxa uu cuni karaa in u dhiganta in ay cunaan koox dadka Carabta ah, maadaama uu soo maray dalal badan oo Carabta ah. 3 maalmood oo nasiino ah baan joogay gurigii martida. maalintii 3 jeer baan la quudin jiray sida caadadu ah dadka reer Muqdisho. maalintii afraad oo ahayd maalin Jimco ah ayaa waxa ii yimid wasiirkii. waxa uu ii keenay dharkii aan ku qaabili lahaa suldaanka kuna aadi lahaa salaada Jimcaha. dharkaasoo ka koobnaa qamiis lagu xardhay xariir lagana keenay dalka Masar iyo cimaamad lagu soo sameeyay Masar dunteedana laga keenay Baytul Maqdis iyo dhinaca Shaam. salaadii markii uu tujiyay kadib ayaa suldaankii la ii geeyay, waana uu i salaamay, si fiican buu ii gacan qaaday, wuxuuna igu yiri waxaad inoo tahay marti sharfan.
markii uu masjid ka soo baxay wuxuu kor istaagay qabriga aabihii oo ku yaala masaajidka barxadda bannaankiisa ah, halkaasoo uu ugu duceeyey qur-aan xoogaa uu ku akhriyey. intaa kadib wuxuu salaan sharaf ka qaatay ciidamadii, wasiiradii, qaadiyadii, imaamyadii iyo abaanduulayaashii ciidanka. masjidka ilaa qasriga uu ka soo gaaro waa uu lugeynayay, waxaana la daba waday dallado aad u qurux badan oo looga celinayay qorraxda. dadka waa ay daba yaacayeen, ciidamaduna waxay garaacayeen durbaano, turumbooyin iyo foori ay ku dheehan tahay damaashaad. qasrigii markii aynu gaarnay, qof ayuu u gacan qaaday suldaankii dadkii oo idil, waana caado ay leeyihiin dadka Muqdisho ah jimco walba. maalintii sabtida ahayd waxaa hoolka suldaanka isugu yimid dadka ahlul xalli wal caqdiga ah ama madaxyaweynta ah. suldaanka kursigiisa waxaa hareeraha ka xiga oo si gooni ah isula fadhiya fuqahada oo meel ah, imaamyada, ashraafta, wasiirada, salaadiinta. bidixdiisa wasiirka waxaa fadhiya qaadiga, garyaqaanka suldaanka waxa uu fadhiistay horay. waxaa kaloo jira qol loogu talagalay dadka xujayda ah ee ka soo noqday ardul xijaaz. cuntooyin kala duwan baa qolo waliba loogu keenay miiskeeda. markii ay dhammaysteen cunooyinkii loo keenay oo ay ka bogteen, waxay guda galeen dhageysiga kaysaska, iyadoo culimmada ay dhageysanayeen kaysaska ku saabsan fiqiga, halka wasiirada iyo amiirada ay ka dhageysanayeen kaysaska shibilka ah ee kala saaridda dadka iyo dacwooyinka. haddaba daawadayaal, ibnu batuuta waxyaalihii uu ka sheegay magaalada muqdisho oo aan halkan lagu soo wada koobi karin ayaa waxaa ka mid ah inuu magaalada muqdisho ku tilmaamay magaalo ganacsigeedu uu aad u kala socdo, ganacsatadeeduna ay gaarsiiyaan ganacsiga magaalada ilaa Masar. ganacsiga ugu badan oo ay Soomaalida ka ganacsadaan ayuu ku tilmaamay inay ka mid yihiin xoolaha nool sida geela iyo idaha, halka uu ku tilmaamay in magaalada muqdisho aad looga cuno hilibka geela iyo idaha, maalintiina lagu gowraco sida uu sheegay 200 oo neef oo geela. waxaa kaloo uu sheegay ganacsiga Soomaalida ee u iibgeeyaan dalka Masar inuu ugu badan yahay dharka iyo suufka. haddaba taas waxay ku tusinaysaa daawada in magaalada muqdisho ay tahay magaalo fac weyn oo xadaarad aad u qoto dheer leh, taasoo mudan in dadka Soomaalida ay ku faanaan. fadlan wixii fikrado ah noogu soo gudbi qaybta comments-ka ama email-ka yaga. waxaan kaa codsanaynaa inaad share garaysid barnaamijkan oo aad subscribe na